maanta waa maalin arbaca ah waa 22 bishii labaad 2023 ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guud ahaanba magaalada Laascaanood ku gadaaman hareeraheeda halkani ma aha fariisinka ciidanka qaranka oo kaliya balse gudaha halka guryuhu inooga muuqdaan waxa degan guutooyin kamid ah ciidanka kuwaasi oo dhufays ugu jira kooxaha nabadiidka ah ee rabshada ka wada muddooyinkii ugu dambeysay magaalada Laascaanood waxaynu booqan doonaa fariisimo kale oo ku yaala magaalada gudaheeda oo aynu ka soo warbixin doono maanta magaaladu waa ammaan wax mushkilad iyo dhibaato ah oo ka jirta ma jirta haba yaraatee ciidamada qaranku sidoo kale waxa ay ku gadaaman yihiin guud ahaanba xaafadaha magaalada dhanka bari waqooyi iyo galbeed warbaahinta qaranku waxa ay gabi ahaanba soo martay fariisimada ciidanka magaalada kooxaha nabadiidka ahi waxa ay sababeen in bulshadu ka barakacdo waxa uu ka warramayaa cidda ay kula dagaalameen magaalada aad baan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol halkan waxa la yiraahdaa seylada geela ama se koonfurta xirada magaranaysa buurta sayidka aad iyo aad baad maasantiin halkan wuxuu yiri timacada wuxuu yiri hashaan geedaweyno libaax uga gaboon waayay inaan goreeyo uga taga oo wax soo go'ay afar dhuumaalaysanaya uga tagmayna wadankayga qaaliga ah halkan waxaan kula dagaalamanaa kooxaha nabadiida ma hadadkay reedka ahaa ma joogto caruuri ma joogto ciyaal waxaan kula dagaalamanaa kooxaha nabadiida oo ka soo duulay ilaa koonfurta Soomaaliya geesta kale waxay ciidamada qaranku ilaalinayaan aqaladii laga guuray kuwaasi oo intooda badan ay hor yaalaan gawaadhidii bulshadu sida gaarka u lahayd waxaana ay ciidanka qaranku u qaybiyeen ciidamo ilaaliya baabuurtaasi inta ay ku soo noqonayaan dadkii lahaa waa Nimcaan Axmed Dagaal iyo Xasan Ismaaciil Maxamed Xasan Shaah telefishinka qaranka Soomaaliland